toban kan maalmood walaalayaal fadliga badan arrimo aad u badan baa ku tusinaya fadligooda. waxaa ka mid ah sida xadiidka Jaabir uu tilmaamayo oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay afdalu ayaami dunya ayaamul ashr, maalmaha adduunyada waxa ugu fadli badan maalmaha tobanka ah ee u horeeya bisha Dil-Xija. qodobka labaad ee ku tusinaya walaalayaal maalmahan fadligooda waa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku dhaartay maalmahan habeenadooda ayuu ku dhaartay alle. markaas wuxuu leeyahay wal fajri wa layaalin 10, waxaan ku dhaartay waaga iyo habeena tobana. mufassiriintu say u badan yihiin waxay ku fasirayaan habeenada tobanka ah waa habeenada ugu horeey makhluuqaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal uu abuuray ee tirada badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma simin hal darajo agtiisa kama joogaan, waa kala fadli badan yihiin waana kala sareeya. tusaale haddaynu bixinno dhulka ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u abuuray, markaas wuxuu ka dhigay Maka tan ugu fadliga badan. basharka iyo bini aadanka ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abuuray, markaas wuxuu ka dhex doortay ambiyada iyo rususha. rusushii baa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu kala sii baxay 5 la yiraaho ulul azmi. 5tii buu haddana sii kala fadilay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baa ugu fadli badan. malaa'igta ayuu sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abuuray, malaku Jibriil buu ka dhigay kan ugu fadliga badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu abuuray zamanka iyo waqtiga, markaas wuxuu ka dhigay 12 bilood. markaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala 4 kamida ayuu fadli siiyay iyo xurmo dheeraada, sida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku tilmaamay إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 4 بلود حرمضة له وبش شوال يا ذي القعدة يا ذي الحجة إيوه بش الرجب ويا. 4 بلودنا إلهي سبحانه وتعالى مسمن وحاوغو فضل بدن بش ذي الحجة قارهان طبانك عشاء بش أوغوه الرئية ayaa waxa weeyaan ugu sii fadli badan. taasina waxay ku dhisan tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadalkiisa ah wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikuun. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa kala dooransiinta iyo kala fadilida iyo isdheeraysiinta. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa xaq u leh xikmad iyo ujeedo aad u weyn ayaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u kaleeya. toban kan maalmood walaalayaal fadliga badan arrimo aad u badan baa ku tusinaya fadligooda. waxaa ka mid ah sida xadiidka Jaabir uu tilmaamayo oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay afdalu ayaami dunya ayaamul ashr, maalmaha adduunyada waxa ugu fadli badan maalmaha tobanka ah ee u horeeya bisha Dil-Xija. qodobka labaad ee ku tusinaya walaalayaal maalmahan fadligooda waa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku dhaartay maalmahan habeenadooda ayuu ku dhaartay alle. markaas wuxuu leeyahay wal fajri wa layaalin 10, waxaan ku dhaartay waaga iyo habeena tobana. mufassiriintu say u badan yihiin waxay ku fasirayaan habeenada tobanka ah waa habeenada ugu horeey, waa in maalmahan ay ku jirto maalinka loo yaqaano yawmun nahri, maalinka dhuundhowga oo maalinka tobnaad ee ciidka ah. sida xadiidka Cabdullah ibn Qurtin uu tilmaamayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afdalul ayaami inda Allahi yawmun nahri thumma yawmul qarri. maalmaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa waxa ugu fadli badan maalinka loo yaqaano yawmun nahr, waa maalinka tobnaad ee ciidda weeyaan. maalinkaas ugu fadli badan buu nabigu yiri. waxa ku xigta yawmul qarri waa maalinka 12 bisha Dil-Xija ay tahay.